Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal. Xilli kasta iyo xaalad kasta waad ku sugan tihiin. Haddii ay tahay markii ugu horreysay, fadlan subscribe saar channelkeena, follow iyo falcelinna ka samee. Sheekadani waxay u dhaxaysaa saddexda xayawaan ee qaybta ka ah habardugaag. Waa libaax oo ah boqorka keynta iyo habardugaag, dawaco iyo weliba waraabe. Waaba libaax wuxuu soo dilay hal ama neef geel ah. Dabadeed wuxuu damcay inuu habardugaag oo dhan u qaybiyo. Wuxuu u saaray inuu u qaybiyo waraabe. Uu ku yidhi waraabu qaybi hilibkan hasha ama neefka geela. Ha yeeshee waraabihii wuxuu u qaybiyey laba qaybood oo wuxuu yidhi qayb boqor adigaa iska leh, qaybna habardugaag baa iska leh. Lama u dhicin ama kuma uusan qancin libaaxu qaybinta waraaba. Wuu cadhooday kadibna wuu dharbaaxay, isha ayaa weliba kasoo dhacday. Dabadeed waxa uu u yeedhay dawaco. Na dawaco, bal adiguna qaybi oo bal sidaad wax u qaybisaan aragne. Intay halkan u booday bay tidhi, boqorow adigaa iska leh neefka geela oo dhan. Waa sidii uu rabay. Intuu aad u qoslay buu yidhi, ayaa ku baratay. Dabadeed maxaa dhacay? Maalin maalmaha ka mid ah, boqorku uu maqnaa libaaxii weeye. Dabadeed waraabe ayaa keenay hilib ama neef geel ah. Dabadeed dhammaan waxa uu u qaybiyey habardugaag, laga reebo dawacadii. Oo waxa uu ku yidhi dawaco, waxaad igu khilaaftay qaybintii hore oo ahayd inaad libaaxa bar siiso, barka kalena inaga. Oo waxaad isku wada siisay libaaxii hilibkii oo dhan oo waad ina qadisay. Adigu maanta waxaad ku xukumanta maadaama aan joogo booskii libaaxu joogay, boqorna meesha aan ka ahay, inaad daawato hilibkana aadan cunin. Dabadeed hilib baruurtiis buu afka ugu duugay, halkanna wuu istaajiyey. Wuxuu ku xukumay inaysan xitaa meesha ka dhaqaaqin. Dabadeed mid kasta oo ka mid ah boqorka habardugaag qaybahooda kala duwan waxa uu dhahaa, dawaco wax ma cunta? Wuxuu ugu jawaabaa, haa way cuntay, way dheragtay, mar hore wixeedii qaadatay. Qisadatan waxay dhex martay sheekadani boqorka habardugaag ee libaax iyo dawaco iyo waraabe oo xubinka ah guud ahaan habardugaag. Mahadsanidin. Sheekooyinku iyo qisooyinku waxay qayb ka yihiin barnaamijyada xiisaha leh aan idila wadaagi doono.